magacaygu waa Ibrahim Cabdi waxaan aadaa iskuulka Walston International High School sanadkan waxaan ahay 12aad waxaan rajeynayaa insha Allah next year inaan aado jaamacadda Minnesota, the University of Minnesota insha Allah waxaan baran doonaa social work ama dadka oo u dooda xuquuqda insaanka. عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محلها أمال روبلة فصل كوي تمناد أهي إن شاء الله مكاقل جبيه the University of Minnesota واربعة عادة لوين واربعة نقطة وكفر أحسن هذه كنا أنت إماتين روزفلت دي وستون بق. السلام عليكم. السلام عليكم. ميجي وحالة نوني سعيد وحالة روزفلت هاي سكول مركز قلن جبيه وحربينا كولج هذا مركز إنا برتو كاليسو ساودن كينو هذا وحاويه. السلام عليكم. مقعيقة واهن السعيد وحن هذا روزفلت هاي سكول وحن أهس فصل كيل لوية توانال إن شاء الله نكشر وحن هذا يا University of Minnesota. السلام عليكم. مقعيقة وانا مع اسمان وحا هذا سكول كان روزفلت وحا هاي فصل كوي توانات إن شاء الله هدان قلن جبيه وحن جعله إنا برتو دكتور نمو عاوية دتك وأنا كفرحتنا إنا أركو ضدنا متلا يعني أنا صعبة وبلو سومالية إنه نقول ماذا نسكول كنا أما سنتين. وحنا يراد زهر محمد أحمد وحنا هاي لطنية شرعية حرون يراد حرون هرمرين تهوينك الصومالية لنعا humanitarianka qolada liira UNICEF oo aydan hooyooyinka iyo carruurta daryeelkooda ah mother and child dhigato Walston High School sidii maaragtay sharafta badan aad noo soo dhaweyseen aad iyo aad baa ugu mahadsantiin walaalayaal runtii waxbarashada waa aasaaska nolosha bini'aadanka waa furaha nolosha dadaalkiina iyo dulqaadkiina baa guul lagu gaaraya markaad jaamacadaha gashaan aad hadhowtii waddankiina iyo dadkiina wax anfacdaan baa meel gaarayna aad iyo aad baa ugu mahadsantiin waxaa stage ku soo dhaweynayaa wasiiradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadamaha Marwo Khadiija Maxamed Deere. macallimiinta iyo ardayda iyo meediyaha halkan ku sugan dhammaantiin wiilashaydii gabdhahaygii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii waxbarashada waxa ay aadanaha u tahay isma sheegayno waa iftiinka nolosha aqoon la'aan waa iftiin la'aan iftiinkaas haddii lagu aflaxo ogaada waxa aad farax gelinaysaan waalidiintii kow idinku soo tiiriyo tacabeel waxaad farax gelinaysaan macallimiintii idinka wax idin baray waxaad farax gelinaysaan dhammaan mujtamaca idinka aad ka soo jeedaan maanta ma malayn kartid intaasoo arday Soomaali ah oo aan hor fadhiyo waxa ay dareenkayga ku abuuraysa ama ay gelisay ama ay ka bedeli karto يوم من الأيام عنقي هل كان فدي كو أفلح إسكولكيسة إن ليدين يقانو إن ليدين أقولن وحبة الصومالي كما بدليش لكن إن الصومالي تهاي ما أنت تميل سو استاكتو قف كستو صومالي أكو فاناي ويل صومالي أما قبر صومالي تهاي أيا ضدك صومالي تفرح قلنيس إلهي هايدين لقرب كلو إلهي هايدين كقوليسيو إلهي نهر هايدين كجارسيو إلهي هايدين كقولي وحبرشة وحنجع الله هاي صوماليا إنات مادان هدي الله أودل أقولاده كدولة أهان هدي أهان الله هاي يا كقف أهان با وايدين سودوينا إن شاء الله وأنا أفكرتان وعقلي إيو سمعيني بصركينا إسكو جيسان أرضي الصومالية أما أبدك الصوماليات أو إذنك إذن لمده أو أن هلين فرصة إذنك آهشين وفكر كواس إلهينا وإذنك أبال سينايا دتكينا وإذنك أبال سينايا هداد والدينتا يو دتك كلايات كدل نوشيهم بأترهدان صوماليا وبدكيدا وحلو قبط صوماليا
ilmahooda waxbarashada waxa looga qabto inta fiican ah uu fikirta Soomaaliya intaasna idinka hormuud u noqda sidii 13kii dhalinyaro oo taariikhda lagu dhigay weliba ardayda reer Minneapolis iyo Minnesota oo dhan gobolkan ku dadaala intiina waxa aqaadana inta kala qaadaysa intaas oo maskaxo isku tagtay ayaa qarankaas dhan lugihiisa ku istaagi kara waa idin duceyna dadaalina waa mahadsantiin wabillahi isla markaasna ay la hadli karaan waalidkood iyo dadka kale ee ay kula nool yihiin magaalooyinkan mataanaha sidii wax loogu qaban lahaa dalka Soomaaliyeed